dhinaca caqabada weyn oo wajahaya waxay tahay oon ka shakisanahay in nad dawladda kaliya maaha in la soo isticmaalay kooxda al-shabaab oon isleeyahay dawladda hadda aan magacaabaynin oo soo isticmaaleen waxyaalaha aan helayo informationada ugu muhiimsan oo helayo oo meelo muhiim aan ka helay oo aad macnihii xogtooda ay u sarreyso waxaa waaye inuu jiro weerar aniga dhan ah oo dhinaca al-shabaab ka imaanay ana aaminsanahay wax la soo abaabul inay yihiin ayada nafteeda ee dad kamid ah dawladda kuwa madaxweyne dalka adaa lagu doortay mas'uuliyaddana asagay saaran tahay qof kale ma saarna saas daraadeed waxaa laga rabaa inuu mas'uuliyadda qaato waxaan u jeedaa madaxweynaha wax kasta oo dalkan ka dhacay oo major crisis ama azma siyaasadeed weyn uu ka aamusay wuxuu ka aamusay dagaalkii maamul goboleed lagu qaaday waxaaf iyo wasiir Rabbi Shariif Xasan wuxuu ka aamusay iyo maamul goboleed inta kaleba wuxuu ka aamusay shirkii maamul goboleed intiisa aruursadeen ee Kismaayo ku qabsadeen madaxweynaha kama hadal wuxuu ka aamusay loolankii khaliijka dhex jiray ra'yigiisa nooma sheegin waxa uu madaxweynaha inta boosaaso tagay nooma sheegin waxa DB Wall iyo heshiiska boosaaso uu ka qabo saldhigga military ee berbero wuxuu ka qabo nooma sheegin waxa loolankii khaliijka dalka ka socda nooma sheegin arintii ugu muhiimsaneed qalbi dhagax madaxweynaha nooma sheegin wuxuu ka qabo xilligii ay mudneed wuxuuna noo sheegay ilaa haddeertan wuxuu ka qabo aniga weerarkaygii gurigayga lagu qaaday dadka lagu dilay kii senator Cabdi Qeydi loogu dhacay gurigiisa wuxuu ka qabo nooma sheegin loolankii xilka looga qaaday ee maayirka Muqdisho asoo ka hadlaya ma arag madaxweynaha wuxuu rabaa crisis kasta oo siyaasadeed dalka ka jirta inuu ka dhuunto koow horta waxaan kula tali lahaa inuusan ka dhuumanin hoggaanka iyo mas'uuliyadda qaata labo waxaan kula tali lahaa in oo dadka Soomaaliyeed la wadaago caqabadaha dhabta ah oo qaran ahaan noo haysta oo naga hortaagan ka baxno meelgaarnimada dhinaca amniga iyo ku meelgaarnimada dhinaca siyaasiga dadka oo hor yimaado oo la hadlo oo dadka Soomaaliyeed runta u sheego